marka aniga saasan ku sigtay in xubnahayga laga baxo marka alxamdulillah aniga hadda meesha fadhiyano wax walbana qadar ilaahay buu ku dhacaan qadar ilaahay baana meesha sideesay alxamdulillah waan ilaahay way ku soo badbaadiyay dadka dhibaatada ku geysanay ma dad dalka gudihiisa ku sugnaa mise dad dalka meel ka baxsan ku geysay wallahi dalkayga dhexdiisa baa qasadan waxay ku dhacday anuu dalkayga joogo haddana waxay ahaayeen dad ajaanib waan dalka u dhan صح dad ajaanib deegaayay marka alxamdulillah marka dadka ku geynaya ma dad Soomaaliya mise ayagii waqtigoodiba ajaanibta ah baa ku qaatay may dad Soomaali bay ahaayeen marka saas eegay oo dadka ajaanibta isku soo baxeen iskama aysan qaadan laakiin dad Soomaali bay ahaayeen marka ay sameeyeen marka waatay waan dareemayaa dareenka murugada ay leedahay asma laakiin waxaan jeclaan lahaa mar walba inaan bulshada dareenka soo wado markii ay dhacday in lagu qaatay marka hore horta qaab noocee baa dhacday in aad gacanta ugu gashay nimankaas makafiyaasha runtii su'aashaas ka badan ka isweydiiyeen bataa qaab noocee baa su'aalaha badankood markaas ka weydiinayaan qaab noocee baad saas ugu gacan gashay nimankaas ku dhacay sometimes dadka qaar waxay aaminaan in aniga baabuur iska raacay baabuurkaasna uu markaa ila tagay haddana ma ahayn sida waxay ahayd goor markaa aruura wiilku walaalkii yarka hadda xaafadda noogu yar baa ila socday adeeg baan soo doonay marka laamiga maraayay aruur bay ahayd marka dadkuna way ku yaraayeen marka waxa sanka ii marayeen isla markaa aniga dhan ibedelay exactly waan dhawaaqi markaan dhawaaqi karin aan ordi karin runtii waxaan noqday qof markuu riyo ku jiro markuu riyootay marka riyadu ku jirto ordaysid markaan aad ordi la adahay intaas camal waay waxa isleeyahay ma ordi man ordi karo waan taaganahay waa dareenkaaga baa shaqeynay laakiin adiga awoodi baa bay marka tartiib marka gacanta ay soo qabteen gaariga sheegay imaysan qasban waada qasbi lahaayeen dadka waaxiga baa arki lahaa markii ay saas dhacday inankii yaraa kula socday wuxuu asug sameeyay miisan inuu la hadlo ama qayliyo ama dhibaatada aan u sheego waxa lagu geysay wallahi waxana asii meesha muusan dareemin ba way wuxuu i jiray in cabaaray oo yarbi i jiray xoogaa i jiray isla markii daqiiqada markii dhacday wixii inta la ii mariyay daaqada la furay waa la soo geliyay gaariga la maqsbina gaari markaan galayna markaas ma qiyaasi karin dadka ku jiro gaariga ku jiro ma qiyaasi karin waa qof walba wixii inuu qonay saddex qof inuu qonay waa warwareeray markaan gaariga galay baa miyir iigu dambeysay wataa markii ay miyirka u ka tagay halkee miyirku ugu horeysay oo indhaha ku soo kala qaaday wallahi waxa miyir iigu horeysay markii meesha la igeeyay oo meesha aan tagay baa miyir iigu horeysay oo waliba markaa biyo baaldi qabow oo markaa zaad u qabow biyo ah bay ugu shubeen markay igu shubeen aan booday stiil anigoo dabaqsan oo markaa jihadii iga lunsan tahay baan kacay marka qayladii markaas soo kaxaysanayeen qayladii baan ku qayliyay markii meesha horeysay kugu dambeysay qaabka u galan baa qayladii baan markaas la soo booday still waxaan maleeyaa marka in banaankii aan joogo ama cid iga qaban karto marka waan dabaqsanaa marka waan qayliyay markaan qayliyay askariga markuu igu dhuftay laad gadaal bay iga soo dhuftay in cabaar meel fog bay igu tuuray marka ma ragaan la socdaa dadku qabaa dawladda wajigana waa u xiran yahay marka uu igaraacay oo walba igu garaacay markaan qaydada joojin waayay waan wareersanaa marka waan uu igaraacay zaid bii garaacay ilaa hadalkii aan kari waayo igaraacay
markii asaas lagu garaacay oo ciqaabtaasi amaday waxyaabo ma jira wax hadal ah oo ay kula wadaageen ama ay kula hadleen ama ay ku dhaheen والله markay isu meeshan garaacay askariga jaweyn baa qabay oo isma dhahayn meesha waxa waa meesha oo dadka lagu qashto macnaheedu dadka sliyooda lagu la bixinayso waxa dhahay waxa waayaan sometimes waxa dhahay xabsi waaye xabsiga lagu keenay waxa waaye dadka maxaabiista oo xabsiga hadana marka xabsi markaan dhaho hadana waxa isweydiyaa su'aal maxaa lagu soo suuxiyay hadii ay xabsi tahay meesha hadii xabsi tahay maxaa lagu soo suuxiyay su'aal qaab dar badan oo markaas aan jawaab aan u waayay hadana marka askarta arko ama askari dadkan tutaaqa marka ku xasila meesha dadku lagu xirxiray jirba hadana meesha ilaa muuqato xabsi hadana wixii meel professional waxa weeyaan waliga aan arkinaha nalka ku xiran qaadka u dhisan tahay qaadka u sameeysan tahay sida tahay macni waxa oo markaas qiyaasin ka sida waxa la Soomaaliya ma dhex joogtid bas leeyahay sometimes laakiin ninkaas soo ii garaacay ma ba ilaahay amarkiis meesha marka aad ku sugan tahay marka aad ku xiran tahay ama lagu geey kaliya dad ku jira mise dad kala saas kala ugu tagto may kaligay kuma jirin waayo gabdho badan ku jireen ayana oo sideedo kala balaakiin iga soo horeeyay taa ku jira meesha oo in xoogaa iga dursanayeen marka oo xoogaa fiican bi jireen ismaan sanman hadli karin waa chance isku la hadlaa inana masinin watahay hay'adii markii lagu garaacay meeshii waxa xigtay kan Soomaaliya buu ahaa ninkani garaacay exactly imuusan naxayn markaan adeero baan dhahay walaalo baan dhahay sometimes wajigiisa maan garadeen oo wuxuu yahay ma aqaanin markaan walaalo ama adeero aan dhaho buu sii daray marka waxa arkay ninkii ajnabiga ahaa arkay soo garaacayo oo nin ajnabi minka ajnabika markuu soo orday meesha soo galay ninka Soomaaliga buu dharbaxsho galiyay waxaan taranturay banaanka u bixiyay maxaa u dilaysaa buu sab u dilaysaa xitaa kii cadaanka ahaa in hayo ajnabiga ahaa in hay kii Soomaaliga ahaa dalka ku dhashayna exactly neeri dhaawacaya ya ahaa wiiga dhaleeyay igu sameeyay wuxuu galiyay kii ajnabiga wuxuu galay meel yar oo adiga daba ka sameeysan caadi la isku arkaayo oo marka rumud lagu farayo qoranto rumud lagu xiraayo meesha buu galay meesha marka lagu hamo lagu kala baxsan karo xadaa waa inaad kadoob aan insaan oo firsado ku laabayna ama tagnaata meesha saan asteexo arkay marka dibkii garaaci lagu garaacay gabdhaha meesha aan hadda ku jiray kuma sijeeday barxadkii beeyaan markaas way iga fogaan hadalna isma gaareen watahay markii meeshaas lagu galiyay oo ninka cadaanka uu ku yimid ninka Soomaaliya masidii baa lagu soo daay inta dhibaato kala lagu geystay may laguma soo deenin runtii dhibaato kale markaas askarigaas oo jirdilka ay sameeyay ma ahana dib kale oo hawaan markii irbadaha deecaanada laga qaqaday irbadaha zaid waxaan badnaa oo marka la igu mudaayay waxay ka yihiin waa fahm waaye irbad madax lagu mudaayo mid dhabarka lagu mudaayo mid jilbaha lagu mudaayo waxay yihiin ba fahm waaye markii irbadahaas koo igu dardarayo kale waxay qabanayeen kuwa waxay qabanayeen Soomaali ahayn laakiin Afrikaan madow bay qabanayeen marka waxa igu xanuun badnayd markii irbad dhabarka la iga mudaayay bay igu xanuun badnayd marka ayaga ay qabteen irbadii markii dhacaanadii wixii ka qaateen maalintii labaad maalintii saddexaadna waxa la saaray computer baa la saaray oo aniga ujeedada marka ay caafimaadka ama dhacana ay ka qaan ku saaray xilligaas ma ka waraysan markaas may isla habeenkii baa ka war heli doona habeen subaxii la soo xiray habeenkeedii
waxaan arkay meed la bixinayo baan arkay meed la bixinayo markaasaan dareemay inay meesha tahay meesha dadka lagu qashto inay tahay baan dareemay baan arkay markaas qofku markuu muslim yahay iimaan uu leeyahay waxyaabo badan buu isku xijinayaa isku hada qofku gaalka markuu yahay uu kala duu meesha sokol ku xirnaana una arki lahaa cinqaabta meesha ka socota meesha isku dhex marjin lahaa meesha isku dhex dil lahaa runtii qof muslim markaa tahay iimaantay ilaahay jidad badan buu ku yeeray isoo marka dhibaatada aad ku jirtid marka ilaahay hadaa ku shukrisid ilaahay boqolkiiba inuu ka badbaadiyo markii aad nimcada ku jirtidna ilaahay inaa ku shukrisidna ayadana aad muhiim tahay markasta aniga marka la soo xiriba runtii waa cibaadada ilaahay kama tegeenin oo cibaadada ilaahay ku sheegnaha adkaar baan akhrisanay quraan waan akhrisanay hadana saas tahayna waxaan cibaadaysanay anigoo bilaa xijaaba marka ma awoodi karin xijaabkayga aan soo qabsado waayo ilaahay markaas uu ii baranayna cibaadadiisa aan marka waan tukanayay waan ilaahay baan bariyay ducooyin baan akhrisanay markasta ay bixiyanba adkaar baan akhrisanay hadana waxaan aaminsanahay ilaahay kala saarashadii aan kala saartay iyo waalidka ducadiisa islaamka ducadiisa in ilaahay iga soo badbaadiyay watahay waa dhibaato aad u xaqiiqatan oo muruga markii ay intaas dhacday oo caamalayaal qaaday computerka lagu saaray waxa ku xigtay in lagu dhaho ama lagu sheego in xubnaha jirkaaga in la baxo mise sidee maxaa waa dareemi kartaa adiga laftirkaaga waxa waa meel markii habeenkii la gaaro midkii la bixinayo mid la bixinayo subaxina computer lagu soo saarayo way computerka kaliyaha loo soo saaraya waa dareemi kartaa marka ani maanta koowaad habeenkeedii baa dareemay inay meesha tahay meesha in la isku qashto maalinta saddexaadna gaar yar oo meesha ku jirtay ayadana baa la qalay oo marka iyada wax yar iga fogeed marka maalinta saddexaad baa iyada qalinka lagu sameeyay kaliya waa laga baxay marka waxaan arkay iyada meed saarar meesha loo wado maxaa lahaa baalka meedka la geliyo talaagadaha meedka la geliyo marka loo sii wado maalintaas runtii alxamdulillah inaan waalanin baa ilaahay ku mahdiyay waan macnaheedu zaaid baan isku bedelay xaalad marka la malaysan karo meesha inuu shoog baan qaaday waayo qofkii shal halka kaaga muuqday oo hadana isagoo meed la wado waxa waay wax markaas zaaid u xanuun badan waay markaas aniga dhimashada kama cabsanin waayo qofkii naxtinta baa iga tarabatay naxtinta marka ka tarabatay xadkeeda ay dhaafto cabsida dhan way ka tagaysaa runtii markaas aniga cabsida dhan way iga tagtay waayo qof waxa marna shoogsan marna cunto ma cuni jirin biyana ma cabi biyuhu diiday cuntadoodana waa diiday zaaid baanan u gaajisnaa oo gaajo zaaid bay haysay aan zaaidnahana sidoo doontina iyo carabkana ma qabaa markii xilliga computerka iyo wax markii bilaabatay garaacista qaabni jidilka laga daayo maalintii ugu horeysay baa igu dambeysay garaacista jidilka iyo waxaad moodaa kan cadaanka inuu iga naxariis badan haba ay qashay laakiin niyad dhis markii la dhaho xagga niyad dhis markii la dhaho iyo inuu niyad markuu meesha ugu soo gala remote ka sigan baa haystay markuu meesha isoo gal kala niyad dhis jiray iyo aan isbidi jiray halka marka aan ku gacan seeraayay aan ku qalqaylinahay waayo asxaan imu aaminsanaayo wuxuu iga sabanayna biyaha naacbo cuntadana cuno marka qofka hadii biyo cabin kaliya ma loo ogaan karo computerka way adag tahay qofka biyo badan inuu cabo waayo marka markaas igu sabi jiray in biyaha cabo aan biyaha marka wadaadin jiray meesha adiga marka ma horay baad u ogeed in markii aad ka wareysay in kale la baxay biyaha naadintay horay baad u ogeed qofka hadii uu biyaha cabo way ugu dhalatay may aniga isma wax igu dhashay waayo qofka sometimes talada marka dadka waxa arki jiray la lahayo computer kaliya laga saaraya biyo cab marka
marka waxaas dhahdaa biyaha iska daysadba kaliyaha ama qarsoomaan la arki waaya laakiin aqoon dheeri ah uma aan lahayn waa iska daysaa صح wata markii biyo aad diiday cunadii aad diiday meesha ku hormaad waqtiga ayaa soo gaaray waqtigeedii baa soo gaaray alxamdulillah ilaahay baa igu soo badbaadiyay runtii xamarolan maadaama meesha aad tagtay dadkii kula midka ah dhan gabdhihii la wada qalay oo kaliya lagala baxay jirkii lagala baxay adigina aad meesha joogtid ama u diyaarsanin bal noo sharax bal qaadka oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaaga badbaadiyay dadkaas runtii ma hado noloshaada wansagan hadii kaaga dhimaan tahay innaka wax kaama qaadi karto innaka maxna kaama bedeli karto aniga noloshayda waa inaan noolaado baa ilaahay ii qoray runtii in dilka sirka ah oo ninka ii geysta maahan jirkayga wax kaloo hagatin ah meesha soo gaarin oo ilaahay halkaas buu ilaahay iigu asturay in iska bacayna muslimiinta baa ii soo duceynaysay حرمك ضد الإسلام بيستاجي وإلهي إبراهيم إنه إلهي عدوى يجسوا بالداريو مقدشوا لهم على يجدوا عيني هذا عاوضك مساجد قارب على يجدوا عين إنه إلهي يجسوا فرداني ويجسوا بالداريو نتكاس مركي كمبيوتر فرونت اللي صاري واحد من اللي سنين بيوا أركان أو مركي اللي يجسوا صار من اللي جواي وهاد إن وركجرت إذا ما كليه أنا إذا برتها مركز صح مركز إسونعين مركز كذب أنا إن اللي صاري كمبيوتر مالي هو حبيبنا مركز إسونعين ها ما شاء الله صح مركز إن اللي صاري إن كمبيوتر كمركز إسارعين صح ما يحرم عين بشدي أي فعن قابك أو صبح هذا مش سلاك أو صبح بالي أول مش كوجرا كمبيوتر كيف صارين جوابي بأكان سيدي كل رقمين سيدي قوس صارين فرنتي سيفا عم بيقول رقمين مركز ويسو صارين مركز سوي السكودة إنا وحنا ما نعبو ما نيجي بري وحنا وحد فين كدي ذي هذا وحنا أما وحنا وحس هي أنا وحشة صح إذا استخدموا فبيجي أنت لو خلناها أو خلنا تعلم أديما لهاد هذه إذا استخدموا بس هي مركز بعدي هذه وحد عدي إن مركز يعني يجوا حل يجروا ما عندها نصارى إن تورا وحيصير صار جوز سجاسة يجوا خلنا إن تذكر بتلفون بوصدرين أيوة صدري ها صح حافظني بتلفون صدحنين 8 ساعة بربا قبل إنه هلاسين صح مركب 8 ساعة بربا كدهين أبا مفاس يعني يهوي يوالد وجوجن هوي مركز أيضا كومي بيسكت جرتوي استا حتى مرسمين ها معلم ما عندي كده بيسي درسنا سهوي يحافظوا لنبا dadka dhan walaalihii dhan marka waxa dhacday markaas 10 saac iyo bar 9 saac iyo 20 bay iga soo qaadeen meeshii goobtii iga soo kaxeen marka laba askari baa dhankayga fadhisay askari inta iga fadhiyay mid kale inta labana wixii ku jirtay shirka intaana u gudbin soo gaaritaanka markii hore mawaaridka biil soo xiriiri jireen maalintii koow horta maalintii labaad ما كان دريم ماشي إنه تهي ماشي دتك حبناها لو ربح صدق إنه تهي فوحى كعصدي نينك أو ها نينك عدانك أما جانك حكى عصدي إنه والدك هالمر يوعو نك أنا وقعت أبي كونوا إني بريان نك وحوا إيه لي إنه يوعو هالمر بس نينك تلفونك هاي ووعي تلفونك مداري والإيسو وعي marka ma wala hadli karin buwaayo codkayga dhanba wuxuu xabeed uu xirmay wuxuu midaad buu xirmay mana hadli karin oo qofka hadalkayga ma dareemayo markaan laga qabtay oo taleefanka laga qabtay baan hadli waayay markaan man isku day inaan kor u qayliyo dadkii markay walaalkay iyo hooyay markay hadalkayga maqleen hooyay sarjoog bay ka dhacday hooyay sidii kooma ku gashay sida tacbaan ku noqotay markaas aan u sheegay in meeshaas aan ku jiro leena soo duceeyo leena soo cafiyo
markaas darkeyga dareeman inaan halkaa ku jiro. meesha marka meel la yaqaano oo dadku ay yaqaanaan miyaysan ahayn? wallahi meeshaas ma dhihi karo waayo meeshaas haddaan ogaan lahaa waa sheegi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed oo ku jira maan kasoo badbaadin lahaa waan lama cabsada dhicina waayo haddaan aqaano waan sheegi lahaa meeshaas ma aqaano markii la galinayna waa socsanaa markii la isoo bixinayna anigina waa iska qof waxaan iska tacbaan haddana indhaha baa ka xirnaa oo waxna aan arkaynin ma garan karo markaa laakiin waxaan garan karaa meesha inay tahay markii la isoo saarayay baan fahmay meesha dhulka hoostiisa camal bay ahayd oon kor baa soo bixin hoos bay dhulka hoostiisa guryaha dhulka hoostooda inay ku jiraan camal bay ila ahayd. intaad meesha ku jidhay wixii kulan xalmana oo aad aragtid taada markaa ka soo kacay ma xasuustaa? wallahi waxa iigu naxdin badneed waxay in habeenkii meedka la saari jiray ay ahaayeen dad Soomaaliya oo markaas hooyo aabana dhaleen isla markaana la waayay oo marka loo maleynayo inay tahriibeen ee badaha ku dhaceen ahayn inay tahriibin oo meesha ku jiraan dhalinyaro badan oo saas dhacday oo loo maleeyo inay tahriibeen oo meelay Chani Arabiya dhigaan la waayay oo markaan tahriib aan lagu tuhmin jirin oo la waayay way jirtaa waxaan markaas aan aqoonsaday in meeshaas dadkaas lagu qashay ama lagu dhameystay sidoo kale dhan ciyaalka yarka oo maalin kasta idin la naadiyo oo la waayo oo markasta cunug baa la waayay dib looma arko maalin kasta way ka dhacdaa maalin horeeda saa u arag social media waa la socdaa manayna cunug yar oo la soo dhigay oo xaafadooda agtooda aabiis intuu waayay la soo dhigay si uu kliyihii iyo ka maqan yihiin oo ku jirta ay ka maqan tahay la soo dhigay social media ku socda maanta ka arkay marka wax caadiyan bay hadda ka noqotay oo marka oo la ogeyn cidna aan daba galin ayagoo la ogyahay haddana la iska nasaabo marka in la raadiyo ama la daba galo waa tahay waqti aad u murugo badan markii ay soo qaadeen oo meesha ka soo qaadeen oo gaariga ku soo qaadeen halkee bay ku keeneen runtii tan igu naxdinta badneed waxay igu qabsatay gaariga dhexdiisa ninka gaariga ugu soo qaadeen baa waxa dhacday mid ka mid ah kuwa gadaal ila saarnaa inuu baskoolad la soo baxo oo markaa inuu madaxa jabiyo rabo baskoolad markuu la soo baxay wuxuu yiri waan dilaynaa meelahan baan ku tuurinaa waayo wayna sheegaysaa kii darawalka baa gaari istaajiyay wuxuu yiri ma dili kartid waa ismurmeen kii darawalkan wuxuu la soo baxay Soomaali waxtaas gaari exactly kii darawalkan wuxuu la soo baxay asigan baskoolad هنا كل دفعة تداني ولا نكون كل فنيها هذه كسب البادين حد كرت ما حاود لسه هي كسب البادين حاود لسه ما تورست مركا هذه يصير كل شيء ولا يسوي كحي مركا ولا توري إلا بمركز إيسو إن ضد إسلامي إيجي عنقلي ومركا إهلي وسفي عن إلا معاملي إلا والد كي ضد كي إهلي magaalada Muqdisho meel dhexdeeda ah xagee wadada weeyaan runtii magaalada dhexdeeda bay ahayd xilli markaa waxay ahayd oo gawaarida u badnayn markaas istaagnayn ciidamada oo markaa taraafiga oo markaa ku fadhiyay maanay ayaga taraafikada ma shaqeyn waayo gawaari badan oo markaa ay kala hagayaan meesha ma mareenin oo zaid ma mareenin waxay ahaa meesha taleex iskaha taleex bay ahayd oo markaa la igu soo tuuray gaariga markuu saas i tuurayba orod buu isku taabtay oo ciidana ma qabanin cidna kama daba ordin islaama jaadley oo baa qayliyay oo meesha ka agdhawaa baa qayliyay markaas cidna markaa qayladoodii cidna wax daba galay iyo wax qayrsaday iyo wax midna ma jirin dawladda noqotay cidna ma daba galin cidna ma ceersanin anigii wadadkii ugu mashquuleen arday jaamacad ka soo baxday runtii dad badan way jiraan oo markaa yaantay meesha iga badbaadiyeen isku baranay ilaa xaafadii isku baranay ayagana waxaan leeyahay abaalkooda ma gudi kare waayo
dadka laamiga iga qaaday biyaha ay urusheeyay waalidkayga iyo wacay bay ahaayeen markii ku tuuriyaan miir ma qabto adigu waa daas waa miir waa qabay laakiin de miir waxa waa qof asigi waxa ismaamuli kara ma ahayn qof